Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for clicking on this video. Welcome to my YouTube channel. This is Lessons with Miss Fatma. If you're new here, please do subscribe. As I introduced last Tuesday, we are going to have our Tuesday short stories. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaalayaal, kusoo dhawaada kanaalkayga. Waan iga mahadcelinayaa inaad videogan taabateen. Marka waxaan rabaa inaan isoo xasuusiyo talaadada qisooyinka gaaban iyo akhriska aan sameynayno marka readingka aan u gudgalno. My bunny, bakaylahaygi. I am Evan, aniga waxaan ahay Evan. I have a little bunny, waxaan haystaa bakaylo yar. It is very cute, aad buu u quruxsan yahay. It likes carrot, bakaylaha wuxuu ka helaa kaarooto. It has a short tail, wuxuu haystaa seen gaaban. It has 4 legs, wuxuu leeyahay 4 lugood. It has big front teeth, wuxuu leeyahay ilko waaweyn kuwan hore. It is white in color, midabkiisi waa casaan. Su'aalaha hadda galeena. Su'aasha koowaad, Bunny likes to eat dash. Bunny wuxuu ka helaa inuu cuno A. Meat, hilib, mase carrot, mase C. wood, alwaax. Jawaabta waxaa waaye carrot. Number 2, what is the color of bunny? Midabka oo bakaylaha maxay? Black, madow, white, casaan, mase gray, grijo. Waa white. Bunny has a dash tail. Bunny wuxuu leeyahay seen oo short gaaban, white cad, long dheer. Bunny has a short tail. Bunny has big front. Bunny waxaa waaye bakaylaha wuxuu leeyahay big front legs lugo, face waji, mase teeth ilko. Jawaabta waa teeth. Bunny has big front teeth. Storytelling. Sheeko. I like all stories. Waxaan ka helaa qisooyinkii hore. My granny, ayayday, tells me many stories. Waxay iga sheekaysaa qisooyin badan about magicians, ku saabsan sixiroolayaal, and kings, iyo boqortooyo. I like all stories. My granny tells me many stories about magicians and kings. Su'aasha koowaad, who tells me stories? Yaa sheekooyin iga sheekeeyo? Teacher, maalin, mise granny? Waa B, ayaydis. Ants, quraanyo. My teacher said, macalinkayga wuxuu dhahay, ants are very small insects. Quraanyada waa cayayaan aad u yar. They walk in a long line. Waxay ku socdaan saf dheer. Sometimes, marmar, they can get on your arms or legs. Waxay kori karaan lugahaadii mase gacmahaadii. I don't like it, aniga kama helo. When they get on me, markay ani isoo koraan. Anna said, Anna saas bay tiri. My teacher said, ants are very small insects. They walk in a long line. Sometimes they can get on your arms or legs. I don't like it when they get on me, Anna said.